shirkan oo ay isugu yimaadeen xubno Somaliland iyo qaar ka tirsan mas'uuliyiinta axsaabta siyaasadeed ayaa waxa uu ka dhacay xarunta la yiraahdo Iceland Business Center ee ku taala Woolwich ee magaalada London waxaana inta badan xubnihii halkaasi ka soo qayb galay ay ka waramayeen sida loogu baahan yahay in isbedel siyaasadeed uga dhaco Somaliland xubnaha halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ah Dr. Cabdi Awdaahir oo isagoo xogeeyaha arrimaha bulshada ee xisbiga kulmiye sidoo kale waxaa ka hadlay xildhibaan Artan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir oo isaguna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye qaar ka mid ah xubnaha halkaasi maanta isugu yimid iyo waxyaabihii ay ka hadleen intaanan u gelin marka hore Ibrahim Dakharaha inoo sharaxo waxa shirkan uu ku saabsan yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee UK. ujeedada shirku waxay ahayd waa shir ballaaran oo iskugu yimaadeen xubnaha kala gedisan oo ka tirsan bulshada reer Somaliland oo lagaga hadlayay doorashada soo socota iyo dhibaatada dalka Somaliland ka taagan iyo fariin waliba ay dadka reer Woolwich iyo reer London ay u dirayaan madaxweynaha Somaliland oo ay leeyihiin waa in ay doorasho xor oo xalaal ah ka dhacda dalka Somaliland taasoo sal u ah horumarka dalku doonayo inuu higsado salna u ah cadaaladda iyo sinaanta ayna kuna boorinayaan xukuumaddu inay arrinkaasi hirgeliso. sidoo kale xubnaha kale ee iyana halkaasi isugu yimid waxa ay ka hadleen in loo baahan yahay in isbedel siyaasadeed ay sameeyaan dadka reer Somaliland xilligan oo ay muhiim u tahay in guud ahaan doorashooyinna loo baahan yahay in halkaasi ay ka dhacaan qaar ka mid ah xubnaha halkaasi ka hadlay iyo waxyaabihii ay ka hadleenna waa kuwan kullay anigu intaan ka hadli doono waxay u farabadnaan doontaa Somaliland waxaynu bedelinaa waxa weeye dayaca aynu soo marnay baynu bedelinaa وأن كبدلنا ضيعنا أن كبدلنا وحن بدلنا وكاوي كسومالي موادك كسومالي إن شاء الله الحكومة دونا حق عد ثلاث وادد ولا لهنا كان حسب يكفرن كران بايع مشتري بيكفرن كران في سوق قاعدة معين وحوادد ولا نسلك وحنا لبضل أو ولا سياسة نكون بدلنا هذا الصومالي وحنا الصومالي المدوى نقدر حيث لكن وحنا Somaliland يا Soomaaliya iyagana ilaahay waxaan uga bariyaa inay si wada ku barakoobaan ilaahay ugu barakayo إن كان أيين يود عيانو أن ساعة ما كان أسرعنا أيين يود عيان أنت هالكاسان يجي مركن هالكان نقط. فرتو حن شعراهي ما دامت قرب شوك تتهين ذلك إن أدل في الوقت تهين إذن كورت إن إذن ذلك كان وحكر نقطان وأيضا كحيلة ستان وأيضا برشو معنوين له ومعنى له ومستقبل كعدكو يوم مالك ما أنت أود ولا قدر ما يتهاي markaas dalkii aad ka soo jeedeen na aydin wax ku oolnimo si wax ku u taageeraysan iminka 7 sanadood bay olodeena haysay oo Mr. Tahir Yaale ka inuu madaxweynaha qiimeeyo wuxuu qabtay hadduu wax fiican qabtayna oo uu dalkii cadeeyay oo shaqo abuuray oo tacliintii hagaajiyay oo wadooyinkii sameeyay waaba nin wanaagsan u footay anaga idile haddaanu taab aanu sameeynin ya aan isweydiino dalku isbedel buu u baahan yahay sidan uu ku jiri maayee xisbiyadii kale chance hal la siiyo isbedelka marka loo baahan yahayna waxa lagu qiimeeyaa yaa bedeli kara dalka yaa experience leh yaa wadaniyadeeda leh yaa daacadnimadeeda leh yaa ummadda u jirta macnaaya waxaanu anagu rumaysanahay haddaanu nahay dhalinyarada ee kulmiye ee UK iyo maanta xisbiga ugu jirta maqashada badan horena ugu soo damqan jiray ubadiisa uu yahay xisbiga kulmiye marka shacabka reer Soomaaliya waxa ku bogaadinaya aad uga fiirsada marka fuudiisaan xoog uga fiirsada isbedelkuna aad buu muhiim yahay distaan shirkan oo kamid ah shirarka inta badan ay qaban qaabiyaan axsaabta siyaasadeed ee Somaliland oo ka dhaca inta badan dalkan Britain waxa uu ahaa mid inta badan maanta looga hadlayay sida loogu baahan yahay in ay doorashooyinku uga dhacaan Somaliland iyo in dhibaatooyinka dadka haysta dhinaca dhaqaale la'aanta iyo waliba shaqo la'aantu ay tahay mid loo baahan yahay in laga gudbo iyadoo xubnaha halkan isugu yimidna ay ka waramayeen istaraatiijiyada siyaasadeed ee ay doonayaan